sidee ayuu doolarku ku noqday boqorka lacagta? shay kasta waxa uu ku xiran yahay shay kale. dagaalkii labaad ee dunida, madaxda reer galbeedka ama Yurubiyaanka xoolahooda waxa ay u direen oo ay geeyeen Mareykanka iyaga oo ka baqanaya in laga farmaroojiyo ama ay ka balaqaystaan xulafadii naasiyiinta oo waqtiga ahayd cudud weyn oo si aad ah dunida looga baqayay. Mareykanku waxa uu ahaa dal ku yaala goob istiraatiijiyadeed misana dhinac walba waxa ka xiga bad, waxaana uu ahaa dawlad leh cudud loo bacdhigi karo xulafada naasiyiinta. sanadku markuu ahaa 1944 waxaa dhacay heshiiskii Britain, waxaana heshiiskaasi uu ahaa mid la isku raacay in doolarku uu noqdo lacagta kaliya ee dahabka lagu qiyaasi karo ama lagu kala wareejin karo. markii ay in muddo ah ka soo wareegatay sanadkuna uu ku beegnaa 1971 waxaa si toos ah TV-ga uga sheegay heshiiskan oo daha ka qaaday isla markaana iclaamiyay madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka Richard Nixon. dagaalkii ka dhex dilaacay Israa'iil iyo dawladaha Carabta sanadkii 1973 laguna magacaabi jiray October waxa uu si weyn u bedelay dhaqaalaha dunida qaab aan toos ahayn. Sacuudigu waxa uu iclaamiyay inuu xiriirkii u jaray Mareykanka iyo dhammaan xulafadiisa joojiyeenna siintii uu siin jiray batroolka ama shidaalka. arrintaasina waxa ay keentay in shidaalka ama batroolka dunida uu isdhimo laga bilaabo markaasi. laakiin boqoshadii Henry Kissinger ee magaalada Riyadh ee wadanka Sacuudiga kadib iyo la kulankiisii boqor Faisal bin Abdulaziz waxa ay isku raaceen Sacuudiga iyo xulafadiisaba in ay batroolka ama shidaalka ku bedelaan dollar. haddii ay sidaas sameeyaanna uu Mareykanku ballan qaaday in uu qaabilayo ilaalinta boqortooyada. laba kal kadib dollarkii waxa uu noqday mid meel mugle kaga jira Sacuudiga. arrintaasi fudud darteed Mareykanka waxa ay u suurtagelisay in uu dib u soo celiyo misana uu kor u qaado haybadii dollarka. intaasi kadibna dawladda Sacuudigu waxa ay bilowday inay ku gacan saarto cid kasta oo shidaalka aan kaga iibsanayn lacagta dollarka, sida dawladda ay ganacsi wadaaga ahaayeen ee Japan oo ay ka diideen misana ay qasab ku noqotay inay lacagta Mareykanka ku bedeshaan lacagtooda.